haliyey reer Taakistaan oo Muslin ah oo aanay badanaa garanayn dadku iyada oo uu ahaa haliyey magac weyn ku leh ciyaaraha MMA-ga balse ugu dambeynna waxa uu noqday mid ay dadkoo dhammi hadal hayaan waana dagaalyahanka Khabib Nurmagomedov kadib markii uu jebiyey dhigiisii reer Mareykan ee Justin Gaethje si uu u ilaashado rikoodhkiisii guuldarrada ka madhnaa ee ahaa in 29 dagaal uu galay inaan hal midna laga badin taasoo noqonaysa rikoodhkii abid ugu adkaa taariikhda ciyaaraha MMA-ga السلام عليكم أصحابتك وحرن قنال كنا ما أكتهي كنا صعد هذا فيديو عصب أو كهذا معلومات كسابسن هل غير روسيا خبيب نورماغوميدوف dhalashadiisii waxa uu dhashay Khabib Nurmagomedov 20 Sebtembar 1988 waxa uu ku dhashay tuulada Sildi ee gobolka Sumandiski ee wadanka Taakistaan waana mid ka mid ah dawladihii midowgii Sofiyeeti haatanna ku jirta midowga Ruushka balse waxa ay leedahay xukuumad gaar ah aabihiisna waa Cabdimanam Nurmagomedov Allah u naxariistay waxa uu ku jiray dadkii u dhintay aafada COVID-19 waxa uu ahaa askari hore oo ka tirsanaa ciidamadii midowgii Sofiyeeti Khabib waxa la dhashay laba walaalood walaalkiisa ka weyn oo ah Amogomid iyo walaashiisa ka yar oo ah Anina waxaana Khabib uu ku soo koray guri ay ku nool yihiin qoyskiisa iyo qayb ka mid ah qaraabadiisu caruurnimadiisii Khabib musaaracada waxa uu bilaabay isagoo daayar markii uu 8 jir gaadhayna waxa tababari jiray aabihiis Cabdimanab kaas oo ku soo bartay ciidanka ciyaaraha kala ah judo iyo sambo waxa uu ahaa mid khibrad u leh ciyaarahaas Khabib aabihiis gurigoodii labada dabaq ahaa dabaqii hoose waxa uu u bedelay goob tababar Khabib markii uu 9 jir gaadhay 1997 tababarkiisu waxa uu ahaa inuu la lagdamo dhasha xayawaanka dubaha fiidiyowgan oo uu noqonaya 1997 waa Khabib markii uu 9 jirka ahaa tababarkiisii guule la yaab leh kadib markii uu Khabib jebiyey dhigiisii Justin Gaethje Khabib waxa uu ilaashaday rikoodhkiisii ahaa in 29 dagaal uu galay inaan hal marna laga badin taasoo noqonaysa rikoodhka ugu badnaa abid taariikhda ciyaaraha loo yaqaano mixed martial arts ama funuunul qitaal mukhtalada oo afkeena hooyana ku noqonaysa xirfadaha dagaalka ee isku dhafan marka la soo gaabiyana loo yaqaano MMA haddaba guulaha Khabib 8 ka mid ah waxay ahaayeen darbad xoogan 11 ka midna waxay ahaayeen xuurto halka 10 kalena ay ahaayeen go'aanka garsoorayaasha Khabib dagaalkii uu la galay Conor waa uu guuldaraystay wareeg ka mid ah wareegyadiisii taasoo ay garsoorayaashu wareegii saddexaad siiyeen Conor halka wareegii koowaad iyo labaadna ay siiyeen Khabib kahor intaanu isdhiibin Conor wareegii afraad halkaasoo ay guusha ku raacday Khabib intaanu ku soo biirin ciyaaraha MMA-ga waxa uu ahaa mid guulo badan ka soo hooyay tartana uu ka qayb qaatay waxa uu 2 jeer ku guuleystay miidaaliyadii dahabka ahayd ee koobkii adduunka ee ciyaaraha sambo 2009 markii lagu qabtay magaalada Kyiv ee wadanka Ukraine iyo 2011 markii lagu qabtay magaalada Moscow ee caasimadda wadanka Russia noloshiisa gaarka ah Khabib waxa uu guursaday bishii July ee sanadkii 2013 waxa uu dhalay gabar iyo wiil Khabib waa mid ilaaliya noloshiisa gaarka ah waayo Khabib weligiis ma soo dhigin sawirada xaaskiisa iyo caruurtiisa bar ka mid ah barihiisa bulshada laakiin internetka waxaad ka helaysaa sawiro la qaaday xilligii xafladii arooskii Khabib balse xaaskiisu waa mid waji daboolan ciyaartoyda Ruushka ah ee ugu caansan haddii aynu isweydiino ciyaartoy Ruush ah oo caana
waxaa markiiba niyaddeena ku soo dhacaya kabtanka xulka qaranka Ruushia ee Artem Zuba iyo xidigta tenniska ee Maria Sharapova. balse hadda taageerayaasha Khabib uu ku leeyahay Ruushka gudihiisa iyo dibaddiisaba ayaa ka badatay taageerayaasha Zuba iyo Sharapova. tusaale ahaan taageerayaasha Zuba uu ku leeyahay bartiisa Instagram-ta ayaa 1 milyan, halka taageerayaasha Sharapova ay ku leedahay barteeda Instagram-ta ay gaadheen 4 milyan. balse taageerayaasha Khabib uu ku leeyahay bartiisa Instagram-ta ayaa 25 milyan oo taageerayaal ah. waxa uu ka soo laabtay dhaawac uu ku maqnaa muddo 2 sannadood ah. Khabib waa mid aad u jecel ciyaartan, balse waxaa jira arrin aanay dadka intooda badani ogeyn oo ah in Khabib uu ka maqnaa kooxdiisa UFC muddo 2 sannadood ah, laga bilaabo bishii Abriil ee sanadkii 2014 ilaa bishii Abriil ee sanadkii 2016. waxayna ahayd muddo nasiimo ah oo la siiyey Khabib kadib markii uu la kulmay dhaawacyo soo laalaabanayay intii uu ku guda jiray tababarka. muddada gudaheed Khabib waxa uu ku fikiray inuu ka fadhiisto ciyaaraha MMA-ga, balse aabihiis Cabdimanaab ayaa ku dhiirigeliyay inuu sii wato ciyaarista ciyaaraha MMA-ga. dhaawaca soo laabtay ee ka soo gaadhay jilibka ayaa sababay inuu Khabib ka maqnaado UFC muddo 2 sannadood ah. diintiisa sida ay u badan yihiin dadka reer Taagistaan, Khabib waa Muslim Sunni ah. badanaana bartiisa Instagram-ta waxa uu soo dhigaa aayado iyo axaadiisba. sida oo kalena Khabib waa uu soo cumraystay. Khabib bisha Ramadaan ma uusan gelin wax dagaal ah intii uu ku guda jiray ciyaaraha MMA-ga, wala uu hal toddobaad ka hor Khabib shaaciyay inuu ka fadhiistay guud ahaanba ciyaaraha MMA-ga. Khabib waa mid aan cabin khamriga sida ay farayso diinta Islaamku, arrinkaas oo uu ka faa'iidaystay dhigiisa uu la dagaalamayay ee Conor, taas oo Conor u dhiibay koob whisky ah isagoo ku dheeleelaya kulankii afka ahaa ee dhex maray dagaalka ka hor. balse Khabib jawaabtii uu mudnaa waxa uu ku siiyey goobtii dagaalka, halkaas oo ay guushu ku raacday Khabib. koofiyadiisa iyo naanaystiisa haddii aad ka mid tahay taageerayaasha Khabib ama aad ku jirto dadka daawada ciyaaraha MMA-ga, laga yaabaa inaad marun isweydiisay maxay tahay koofiyadan uu xidhan yahay Khabib mar walba. haddaba koofiyadan waxaa la yidhaahdaa babakha, waana qayb ka mid ah dhaqanka waddankiisa Taagistaan. badanaana waxaa laga sameeyaa haragga xoolaha, waxaana xidha ragga iyo wiilasha sanadka oo dhan. waa mid diiran jiilaalkii, qabowna xagaagii, umana baahna ilaalin gaar ah. babakha waa calaamad geesinimo oo ay leeyihiin qowmiyadda Qawqaasiga, waxaana lagama maarmaan ah inaanu bixin qofka xidhani ilaa marka uu dagaalgelaya mooye. waa sida galka seefta, haddii aad galka ka saarto seefta mar kale kuma celinaysid ilaa iyo aad dagaalka ka dhammaata mooye. ka hor Khabib inta aanu ku biirin kooxda UFC waxa ay dooneen inay u bixiyaan naanays, kadibna waxay u bixiyeen baaska The Eagle, taasoo calaamad u ah waddankiisa Taagistaan. wakiilkiisa iyo luuqada uu ka hadlo Cali Cabdicasiis oo ah wakiilka Khabib waxaa lagu qiyaasaa inuu ka mid yahay sababaha uu Khabib heerkaas ku soo gaadhay. Cali Cabdicasiis waa 42 jir u dhashay waddanka Masar, waxa uuna ka mid yahay tababarayaasha ugu fiican ciyaaraha MMA-ga, waana aasaasaha iyo madaxweynaha shirkadda Dominance MMA. Cali Cabdicasiis wakiil keliya ma aha, balse waa uu la tababartaa dagaalyahanada MMA-ga, waxa uuna ahaan jiray dagaalyahan hore oo MMA ah. Cali Cabdicasiis waa mid reer leh, waxa uuna dhalay 4 carruur ah. waxa uuna caawiyay Khabib gaar ahaan xilligii bilowgii, taas oo uu Khabib aanu ka hadli jirin Ingiliishta, balse hadda Khabib waxa uu ku hadli karaa luuqado badan. marka laga reebo luuqadiisa hooyo oo ah Afart, waxa kale uu ku hadli karaa luuqadda Ruushka, Ingiliishka, Turkiga iyo luuqadda Carabiga. kubadda cagta Khabib waa mid aad u jecel kubadda cagta. kubadda cagtu waxaa lagu qiyaasaa inay tahay shayga labaad ee uu jecel yahay Khabib marka laga yimaado MMA-ga. waxa uuna ka mid yahay taageerayaasha kooxda caasimadda Taagistaan ee MG Makhashkala. sida oo kalena waxa uu taageeray xulka Ruushka koobkii adduunka u dambeeyay ee 2018.
balse kooxaha waaweyn ee reer Yurubna Khabib waxa uu taageeraa kooxda boqortooyada reer Spain ee Real Madrid waxa uuna kaga falceliyaa barihiisa bulshada ciyaaraha waaweyn ee ay kooxdu leedahay waxaana jiray kulan gaar ah oo dhex maray Khabib iyo weeraryahankii hore ee Real Madrid haatanna ah weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo taas oo uu Khabib u hadyadeeyay koofiyadiisii caanka ahayd ee Babakha halka uu Ronaldo u hadyadeeyay funaanada Real Madrid oo ay ku qoran tahay lambar 7 iyo magaca dagaalyahanka Khabib